wardegdeg ah sirdoon Ethiopian oo ku soo wajahna Hargeysa oo la hor istaagay yay tahay cid hor istaagtay maxay ahaayeen qorshaha ay u socdeen muuqaalkan ayaynu ku soo koobi doonaa waxaan ahay Yuusuf Maxamed Axmed haddii aad igu cusubtiin fadlan ku soo biira bartayda Facebook oo ka mid noqo saaxiibada igu xiran si aad halkan uga heshaan warar warbixino muuqaallo had iyo jeer aan ku soo baahiyo muuqaalkan la wadaag saaxiibadaada si ay kula daawadaan qaybta commentigana kaga soo dhiiba aragtidaada isuriistaaga lagu sameeyay sirdoon Ethiopian oo doonayay inay Hargeysa tagaan warar hoose oo soo gaaray ayaa sheegaya in saraakiil sare oo ka tirsan sirdoonka Ethiopia oo doonayay inay tagaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland maalinta bariya ayaa gabi ahaanba la hor istaagay inay tagaan Hargeysa ujeedka ugu weyn ee socdaalkooda ayaa ku qotama inay hordhac u noqdaan wafdi ka socda dawladda Ethiopia oo toddobaadkan tagaya magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxaana qorshuhu u ahaa in ay si rasmi ah magaalada Hargeysa uga qayb galaan wafdiga la filayo in toddobaadkan ay gaaraan magaaladaasi bandhig lagu soo bandhigayo in heshiiskiisa afgaradka ahaa ee dhexmaray Somaliland iyo Ethiopia loo rogo heshiis rasmi ah waxa hor istaagay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa looga digay diyaaradaha isticmaalaha hawada Soomaaliya inaysan soo qaadi karin saraakiisha sirdoonka Ethiopianka iyo wafdiga laga qaban qaabinayo magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ila muhiim ah oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa inoo xaqiijiyay in arintan ay dib u dhac ay ku keentay munaasabadda la filayo in magaaladaas ay ka qabsoonto toddobaadka soo aadan ilahan aynu xogta ka soo xigna ayaa si lamid ah waxa inoo xaqiijiyeen in Ethiopia ay qorsheynayso in wafdigeeda ay ka soo galaan dhinaca dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia halkaas oo ay diyaarad ku tagi doonaan kadibna ay safar socdaal dhinaca dhulka ah ay ku soo gaarayaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxa si lamid ah uu qorshuhu yahay in Muuse Biixi Cabdi uu tago toddobaadyada soo aadan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia halkaas oo uu tagi doono munaasabadda ka dhici doonta Hargeysa mid lamid ah in magaalada Addis Ababa lagu qabto isla markaana uu si rasmi ah loogu dhawaaqo in Somaliland ay tahay dalka madax banaan Soomaaliya inteeda kalena Ethiopia ay xaqiijiso helitaanka hadafkeeda ugu weyn ee u dagaalamaysa oo badda ah oo ay dawladda federaalka Soomaaliya si adag ay u diidan tahay dadka Soomaaliyeedna si midaysan ay uga soo horjeesteen inta ka kamid ah dhulkeenna ay qaataan xabashida magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxa dhawaan lagu soo gabagabeeyay kulamo warar kala duwan ay ka soo kala saareen Soomaaliya iyo Ethiopia iyo si lamid ah dawladda Turkiga kulankan wax natiijo ah kama soo bixin sida lagu baahiyay bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Turkiga ayaa sadexaadin ka ahaa oo doonayay inay isku soo dhaweeyaan Soomaaliya iyo Ethiopia oo ku kala tagay heshiiskii bilowgii sanadkan ee dhinaca badda ku qotomay ay wada gaareen Muuse Biixi iyo hogaamiyaha xabashida Abiy Ahmed dawladda Turkiga waxa ay sheegtay in dib la isugu soo laabanayo bisha September halka Ethiopia qoraal ay baahisay wasaaraddeeda arrimaha dibadda ay sheegtay in dawladaha Soomaaliya iyo Ethiopia isu soo dhawaadeen is afgaradna ay gaareen labada dhinacna ay ka muuqatay daacadnimo iyo sida ay uga go'an tahay in si toos ah loogu dhaqaaqo dhabaha wada hadalka iyo si lamid ah dib u soo celinta xiriirka xumaaday ee dhinaca diblomaasiyadda Ethiopia iyo Soomaaliya xabashida hankeeda kama tanaasuleysa sinaba sida kol hore uu sheegay Abiy Ahmed halka madaxda qarankeena ay sheegeen inta ka kamid ah dhulkeenna aysan uga tanaasuleynin dawladaha shisheeye ee doonaya in dalkeenna si sharci darro ah ay ku soo galaan dalkeenna waxa uu wajahayaa culays xooggan oo dhinaca difaaca waxaase jirta in dadkeenna qaarkii ay isku mashquulsan yihiin oo aysan bawar u haynin duulaanka ay xabashideen ugu hayso ilaa dhamaadka muuqaalkan haddii aad ila soo gaarto waa kaga mahad celinayaa nabadgelyo